بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta dhex taaganahay garoonka Cabdikariim Faarax Laqayo waxaan aaminsanahay garoonkan uu yahay garoomada gobolada dhexe garoonka ugu weyn uu ku jiro dhowr garoon oo booqdo hore gobolada dalka ku yaalana uu kamid yahay garoomada ugu weyn xaqiiqdii garoonkan wuxuu u xiran yahay aan u jeedna maanta xaq dayactir ahaan arimihii biyo baxada arimihii yani in loo dhameystiro agabkii sportska loo dhameystiro gobolada dalka oo kale xaqiiqdii waxaan arkay garoonkan inuusan lahayn wax kala celiya ciyaartooyda iyo taageerayaasha oo ah ka maqan yihiin garoonka kale waxa wali ka dhex muuqda dhismayaashii laga dhisay dhagaxaantii chayga iyo waxa ka dhex muuqda geedihii wali wuxuu u baahan yahay dhagaxaantan chaygan qaabkii loo habeen lahaa stadiumkan sida arkaysid ma lahan wax dayactir ah muddo 2 sano ka badan wax ciyaar lagu qabtay ma jiraan markii laga reebo xilliga la dhisay oo ciyaar lagu qabtay aan badnayn waxay ka dambeeyay muddo bil iyo 2 bilood ma dhameyn xitaa waxay ka dambeeyay garoonka gacanta ayuu ka baxay dhibaatooyin badan ayuu qabaa waxa ka baxay geedo wuxuu noqday dhul agana gudihiisa arkaysiin marka garoonkani wuxuu u baahan yahay dayactir aad u weyn ayuu u baahan yahay أنا مقعي عبد الكريم عاصي عبد الله كان مدى عيارتيدي هوري gobolka كان soo qabtay xilal kala duwan oo sportska waxaa muddo laga joogo 10 beri oo 18kii macnaha 10kii bish aan ka bilaabnay shaqo garoonka stadium Laqayo kaasoo ka muuqday macnaha burbur macnaha xagga dhulka ah iyo macnaha soo qabsada geedo jini ah runtii macnaha garoonkan gudaha inta lagu dheelo waxaa qabsaday geedaha qabsaday waxaana macnaha ka soo baxay geedaha ka soo baxay dhulkii lagu dheelayo oo dhagax u badnaay asigoo macnaha xagga nadaafadiisa liidatay 10 beri ayaan ugu shaqeynay macnaha wixii geedaha ka gubrin aan laga gubay dhulka wixii dhagaxaan laga baxshay wuxuu halis u ahaa ciyaartooydii ku dheeli jirtay garoonka inta lagu dheelo oo 100 mitir ah oo halis u ahaa wixii dhagaxaanna waa ka bixinay waxaan lagu shubay ciidamada waa lagu shubay si loo helo macnaha ciyaartooyda safe alxamdulillah hadda taa 80% meel oo ciyaartooyda lagu safe garay kara noqotay garoonkii ama lagu aamini karo in ciyaartooydu ay ku dheelaan runtii macnaha horumarkan aan sameynaa jirtaan waa mid muuqdo waxaa lagu wareejiyay garoonka inta lagu dheelo oo ka kooban yahay oo inta lagu dheelo oo derbi madow u jeeda calaamadaas ah